qaxootiga marka la joogo intii joogtay intii kalena de ilaahay idima bageeyaba noloshaasi nolol aad u adag bay ahayd runtii waqtigaasi waqti aad u adag bahaa duruuf adag baa jirtay way adkayd qof kastoo halkaa jooga xanuunaa jiray dadku waa dhimanayeen nolol adag bay ahayd markaa intaa waxaan kaga soo yarbaxayaa inaan shaqadeydii stiil aan wadin baan dee tusaalaha uga socdaaye waynu ka soo gudbinaa noloshii waddanka marka lagu soo noqday waddankoo iska rafa ayaan dib ugu noqonaya markaas in lifestyle-ka ay ka sheekay baa halkan ay ka soo dhex baxaysaa marka qof walba wuxuu doonayo iyo questionskan doonayno markii la soo noqday anu mar walba shaqa iga hayd waan shaqaynayay ganacsi baan ka shaqaynayay ganacsigu mid aan leeyahay ma ahayn shaqaale ayaan ahaa bakhaaraan ka shaqaynayay ina yaroo shaqaalaan ahaa oo dheefta ka soo baxdana reerkooda u geynayay waxbarashadeydii baan dib u bilaabay markaas waxbarashadii markaan waxoogaa ku jiray shaqadii ayaa waxaan damcay inaan iska joojiyo si aan waxbarashadii sii wado waan joojiyey waxbarashadii baan waday waxbarashada waqtigaa la dhiganaya waad garan kartaa marka waqtiga lagu soo nacdo waxbarashada ka sheeganaya waa private iyo wax la tagay noloshii xaafadda hooye markaa garwadayn ka ahayd quutul daruuriga iyo shaqada gurigaba ayaa adkaatay way cuntami weyday inaan sii wado shaqada waxbarashadii waxbarashadeedii gaab baan geliyay waan joojiyey shaqadan dib ugu noqday still ma haysto waxaan anugu ka shaqeeyo oo aan leeyahay laakiin waxaan weli ahay qof shaqaale ah duruufta xaafadayda haysata ayaa ii saamixi weyday in aan waxbarasho wado kadib dib baan ugu noqday ganacsigii iyo wixii aan ka shaqayn jiray shaqaalaan dib u noqday haddana tii anigoo ku jira oo ay aragnimadeydii shaqadu sii kordhiso maalinba maalinta ku xigta oo aan is leeyahay maanta halkii hore kasii wanaagsan tahay mid waan idin xasuusinaya intaan ku jiro shaqada isma dareensiyo inaan xanuunsanayo isma dareensiyo inaan shaqaalahay isma dareensiyo inay baahi hayso energy-ga aan ku shaqaynaya waxa weeyaan vision baa ii muuqda markaa waxaan niyaddaygaga jira maalimaha ka mid a inaan noloshan ka bixi doono taasaa mar walba qalbigay ku jirtay marnaba isma dareensiyo waxaan ahaa shaqaale xaqiiqda marka laga hadlay iskuma ammaaniya ciddu u shaqaynaya daacad u ah mar waxaan soo jiray ilaahay ku cadaabi doonaa salaad ku jiraan meel ka jiro ma ka baxda salaad halka ma hagaagsan daacadnimaday ka muujinaysa yani inaan shaqada daacad ah anyway hadafkaygu wuxuu ahaa inaan maalimaha ka mid ah ka bixi doono wax iimaankayga intaas ma ku jirtay way socotay shaqooyinkii midba mid markaan aan ku bedelo midba mid ku bedelo fursad aan imaka markaan wax badan ogaaday aan dayacay baa jirto doonayo maadaama aynu taariikh ka sheekeyno waa inaynu ka faa'iidaysanaa maxaan ka faa'iiday sheekada fursad aan dayacay oo imaka intaan aan weynaaday dee waa arag noqday wax walba bartay ayaa jirta maxay ahayd waqtiyada aan ka sheekeynaya waxa weeyaan waqtiga dalka lagu soo noqday 1994 soo taxadulina intaas waxay ahayd ganacsiga waqtiga dalka ka jiray dad gaar ah ayaa gacanta ku hayay baahida dalku way iska badneed laakiin opportunity-ka businessku aad buu weynaa yacni qofku hadduu wax yara isla samee bum waa ku qarxayay laakiin aniga iguma beereen markaa inaan entrepreneur noqdo wax aan leeyahay anuu aan sameeyo balse waxa igu beernaa inaan shaqeeyo soo gaabka halkaa waxaan geliyey fursad weyn oo aan u arkay haddaan isku dayi lahaa waayo energy meelahaan ka shaqeynaya cidda la-aan uga khibrad badan product halka laga keeniyo transactionka cidda dhex maraya customerka iyo qofku xibinaya waa aniga wixii qofka haya waa aniga waan awoodi karayay automatic intaan meel iska kareystay inaan waxaan ba iibiyaano laakiin igumay soo dhicin waa taan u baahanay inta halkan hor fadhida inay qaar badan oo kamida maanta ay haysataa laga yaabaa inaad ka shaqaynaysid shaqo fiican waayo aragnimadeedii aad leedahay inaad wax abuuri kartaa waa easy weeyaan haddii lagu idhaa wax ma samayn kartid waa been weeyaan rag iyo dumarba waa loo sameeyaan fursaddan baan ka faa'iideen sidii bay iskaga socotay noloshii nin weyn baan iska noqday waxbarashadii baan dib u yar bilaabay marna waxbarashada kama tegin intaan ka kari karaaba waxay noqotay markaa life style-kii noloshii isbedesho halkaa markay noloshu marayso waa iska garan karaysaana waaye kalaa soo biiray markaa nolosheeda markaa waaye kalaa kusoo biiray waxa kusoo biiray waaye runtii nolosheeda wax badan ka bedelay waxaan isu diyaariyey dee markaa nin inaan noqdo sheekaya dee hawlihii waad garanaysaa bilaabo arrin aada u xiiso badan bay ahayd dhalinyarta waa iska ogtoo qofku marka waayahaas ku soo galaan tensioniskaaga wax badan bay ka bedelayaan
ayadoo waayahaas igu jiraan oo markaa dee nolosha aan dhex galay shaqadii aan wado ayaa nin aanu saaxiib nahay wuxuu igu qalqaaliyey waa waxyaabaha imika taagane inaan waddanka ka tahriibno wuxuu aad igu qalqaaliyey inaan waddanka iskaga tagno oonu iskaga baxno waan la qaatay ajantu ii soo diyaariyo wuxuu yiri halkaasina maraynaa ninka loo mukhallaska ah dee waqtigaa waliba dadka sida nooma leeyna si dhib yar baa lagu tagayay nolosheedu isku bedelayso aad ugu fiirsan markaa habeenada ka mid ah baan fikroodin xaggee socotaa waaye waxay tagaysaa halkaas qarfaasaad maraysaa noloshaasaad maraysaa nolol kalaad bilaabaysaa maxaa dhacay maxaa ku yeerinayaa dee noloshan sidaas iskaga tagaysaa anaa isla hadlaya markaas saaxiibkay wuu sugaya berri maaha saa dambe inaan baxno weeyaan lacagtaan ku baxayna wax walba waa diyaarsanay ilaahay wuxuu waafajiyay awoodii kartaan ay kuma keenine inaan go'aankaa burburiyo subaxii maan sunnada waxaan ku wari lisan misaa anigu ma tegayo maxaa dhacay ni waxaan rabaa nolosha kama baqanaya inaan noloshan wax ka sameeyaan doonaya adiga laakiin haddaad iga qaadanayso axsan haddii kalena oo isku soo ducaynaynaa ninkii muu joogsan go-aankiisu buu qaatay uu baxay ana go-aankaygi baa qaatay waan joogay sheekadiisa gadaal baan ka sheekayn doonaa hadha toole waan sun nimid aakhirkii isagu sidii u eegayay saan anugu noqday markaas ayayna kala soo dhex bixi doonaa waxa muhiimku yahay uu tegay saaxiibkay go-aankan qaatay noloshayda ku bedelay sidii baan u joogay anigoo shaqaalihii ah ayaa waxaan ka fikiray maxaad nolosha ku bedeli karaysaa waa su-aasha aad imika isu weydiinaysid sideed nolosha u bedeli karaysaa okay barnaamij baan samaystay barnaamijkan sameeyey markaa maan fulin hawshii kalaa markaa igu soo badatay iyadoo xaggan kurbo badan iga soo gashay hawsha waa hawshii nolosha weeyaan ama jacaylka ama mustaqbalka ilaahay wuxuu qadaray inaan go-aan degdeg ku qaato inantii aan wada sheekisano isguursano way adkayd laymana ogolayn anna duruuftaydu may saamaxayn inaan qofan ka feeyo runta marka laga hadlo nolol aad u adag bay ahayd way runtii igu ciriiri badnayd laakiin decision aan qaatay baan wax walba iskugu qaaday ilaahay waa ii qadaray inaan ku guulaysto qofkii nolosha la wadaagi lahaa oo raalli ku ah inaan xiro okay waad heshay what's next waa halkay nolosha ka bilaabmayso rag badanna ku burburaan ama aad ku dhaafaysid waa sawiran karaysaa waqtiyadaa ka mid ah waa 1998 qaar inaana jirin baaba laga yaaba suurtagal ayaan go-aankaa guurkaa qaatay runtii way adkayd qof aada u qiimo badan ayay ahayd sidii doonta way igula qanacday raalli haddii lagu yahay haddii aan lagu lahayn inan yar oon waxba haysan oo aan kafayn karayn qof gabadh aada u qiimo badan oo reerkooga han weyn la doonayo oo aan suurtagal ahayn inuu nolosheeda meel gaadhsiiyo waa sawiran karaysaa adiguba haddaad aabba tahay umaad ogolaateen qadar ilaahay bay laakiin ku timid ma wuxuu ilaahay wado cidna ma joojin karayso anyway sidii baa iska ku dhacday okay marka hore waxba maad hayn shaqana gacanta kumaad hayn shaqaalaad hayd noloshanna waad qaadatay waktiguna waa waktigaan ka sheekeynayno oo maanta facilityga nolosha wax walba waa different weeyaan runta marka laga hadlo maanta waxaad heli kartaa qof xitaa saaxiibkaaga ku caawiyo guurkaaga xalad kaa caawiya bal imagine sawirka noocaasa markaas qofkaad guursanaysa idinkaa is ogole laguma ogola laakiinse sababtoo ah qof khasaare ah baa lagu arkaya adiga haddii aad qofkan qaadatid waana run la yaab ma laha ilaahay baa laakiin qadaraynaysaa u dhacdo waas helnay xabaali ninka loo kala teg bilaa camal baan ahay shaqadii ugu dambaysa markaa waan ka dhaadhacay halkaas waxaa ka bilaabmi doona my real life-kayga aan maanta ku jiro markaas waay waxaa suurto gashay markaa oo timid nolol baa lagaa doonayaa dhaqaala lagaa doonayaa de qof baa soo lugeysay adna waa soo lugeysay runta marka laga hadlo duruufaha iyo waayaa marka la eego maxaad ku sarfayfalaysaa hanti waxaan haystaa waa qalbigayga iyo jacayl nothing else wax kale uma hayo ayadana waxay haystaa waa jacayl laakiin marmarka qaar buu jacaylku guulo badan kuu keenaya hantidaba ka qaalisan yahay waay waa loo kala tegey noloshii baa igu soo adkaatay
ilaahay wuxuu nasiib siiyey in shaqo la igu yeedho shaqada la igu yeedhayaa waa shaqada maanta dollar store waa dukaankan 2000 2002 2001 ayaa laga furiyay halkan goobtan agteena ah uu cusub yahay waa marka hore wuxuu ahaan jiray halkaas marka dukaanka halkan loo soo rarayaa waxa lahaa Allah daayanin Cabdixakiin Xaaji Ciid la yiraahdo Mareykan ka yimid dukaanka wuxuu ku wala jiray marka hore halka production ku yimid jirna waxa ahaan jiray waxyaabahan cuntooyinka waxaas dhar iyo waxa kuma lahayn shaqo in yar mooyaane marka uu soo raray xaggan uu keenay uu yeeray wuxuu igu yiri waxa rabaa inaad la shaqaysid waa fresh truck marka de shaqo ma diidee ilaa waxba iga dambeeyay way baan idwaan ogolaaday shaqadeedii ugu horeysay marka barmarka hay'ad halkaas aan ka bilaabay waxaan markaa ka shaqeynaya lifestyle-kay waxaan jiray ana marka hore iska jeclaan jiray waxyaabaha inaan ka shaqeeyo shaqadu iguma cusbo waa aragnimo shaqo iyo ganacsigii waan leeyahay isagu wuxuu igu soo xushay waa intaas shaqadii baan galay muddo markaan shaqeynay waxa soo baxay markaa afkaartii dhabtayda igu jirtay ganacsiga aniga igu abuurneed in habeen iyo maalin ula jirayniyo goormaad waxaas u samaysaa waxaan isiri halkan ka suurta gali laakiin awoodeedii ma lihiyo shaqaalan hay anu familka meeshan ana Mareykan bay ka yimaadeen soo waa dareemi karaysa maxay adiga ku dareemayaan inaan yar oo waxaan waxba ka garanay laakiin waxaan soo haystaa inaan boqol ka khibrad badanahay because of environment-ka wadankan uga khibrad badanahay waan dukaan ka shaqeeyay alaabtii taale waxa food staff iyo waxyaabo noocaas ah waxaan go'aan ku gaaray inaan u soo jeediyo fikir in la bedelo waxaan gabigiisa business model-ka in la bedelo waan u soo jeediyay runtii iga may qaadan waxay yiraahdeen way leegi doonaa wax noocaas ah waan niyad jabay nin aan wada shaqeyn jirnay oo markaasna ila joogay oo imaka Ingiriiska ku noolay imaka maalin dhoweed buu yimid maanta wiil soo hadlayay ayaa igu yiri maxaa adigu ka kalifaniyo waxaan ku waayo maxaa waxaan la guri ka shaqeeyno ka shaqeynaa mushaarkeena oo qaadanahay badahan lama galay iska daa dadka wax kaama qaadanayaan waxaan ku wadi dam baan ahay ana nacasa hadaan qofkan la joogo wax u sheegin liana sababta hada dheefteena ku jirto waa inaan wax u sheegnaa haduu doonayaan oo qaadanay runtii uu ila yaabay fikirkeygina lama qaadan buug iyo qalin baan soo qaatay waxa aan design gareeyay halkaan waxaan doonayaa inaan tusaale ka yar bixiyo war markaad doonaysid inaad entrepreneur noqotid amba aad wax abuurtid fikradu way kugu jirtaa laakiin soo saar dibadda soo dhig qoraal u bedel academy u bedel waa wax aad u muhiim ah waxa aan sawirayo markaa ka shaqeynayay dukaankan imaka siduu yahay ayaan business model-ka ka fikiriyay baan bedelay anaa ku dhex sameeyay meesha qoraalkii baan sameeyay sawiraan sameeyay sida design-ku yahay ninkaas uu yimaadaa wuxuu igu yiraahdaa ninkaan wada shaqeynaa waalidii hore markaad waalid ku darsato buug iyo qalin ku mashquul saabay igu yiraahdaa aniga xanuunka yahay maskaxda iga gubaya isaga ma gubayaan runtii maxaa dhacay baan ku oday suudi war dadkan waxba kaama qaadanayaan waxaan maalin boqol qoraysiyo waxaan sawirta iska daa kelmad buu ilaahay iga yeersiiyay hadda ninkaas isaga lafirkiisu ma sha Allah uu liimaanay Ingiriisku jooga jaamacadda sanadkii u dambeeyay ku jira maalin dhaweed buu yimid kelmad buu ilaahay iga yeersiiyay waxaan ku oday waxaan ku tusi doonaa riyadaydaas rumowday ku tusi doonaa baan ku oday oo igu qoslay buuggaas maalin walba wax baan ku qoraa waa business model-ka marka aan mustaqbalka aan yeelan doono way insha Allah diilayna anyway qoladii meeshii way wadi kar waayeen way iska wareejiyeen qolo kale laga iibiyay qoladii kale laga iibiyay ana runtii la sii shaqeeyay marka shaqadu waa iska dheertay qoladii kale ee la sii shaqeeyay iyaga lafirkooda fikirkan soo gudbiyay waxa weeyaan mar labaad meesha san kuma soconayso waa inaynu bedelnaa waxaana u baahan tahay budget waayahay baa la yidhi muddo markaan la shaqeynayay may suurtagelin arrintii waa waxyaabaha ugu miisanay sometimes qofka kuu shaqeeya uu kaaga khibrad badan yahay shaqada adigu ownerka ka tahay waa very important so hadduu ilaahay business people atiin amba mustaqbal wax yeelataan talada qofka shaqaalaha ka tegina waa very important yowmuna hada waa la tashadaa go-aan ma gaaraan iyaga la tashada way iga diideen waayahay bay igu dhahdeen bay suurtagelin
muddo markay sidii ahayd baa iyagana aan runtii ka tegay anigu waan iskaga fadhiistay waxa weeyaan halkan noloshayda waxaa ka bilaami doonaa wax aada u mucjisa markaan shaqada ka tegay markaas waxa weeyaan waxaan kusoo dhacay camal la'aantii gurigii baan iska imid ma iska joogay shaqo waan isku dayay inaan raadiyo ilaahay ma qadarin mayi qof fadhi karaya waxaan ka fikiray shaqo waa markuu ilaahay ku imtixaamayo way suurtageli weyday noloshu way soo adkaatay bishii ugu horreeyey budgetkayga horaan cunayey bishii labaad wixii kasoo horaan cunayey guri baan deganay halkan agteena imaka halkaa yar baa xoogaa inoo jira dhowr tallaabaa kiradii gurigaa la yimid laydhkii baa loo yimid biyihii baa loo yimid life is very difficult way ugu adag tahay wax aan ku bixiyana ma hayo dadka bini aadamka way kala duwan yihiin ma yihi dadka yaqaano luqadda dadka lagu shaxaadan wax lagu weydiiyo example maanta waxaad arkaysaa rag shaxaad biilka xaafadiisa kaaga diyaarinaya waad aragteen wax real way igu adag tahay in aan u sheego cid baahidayda way igu adag tahay inaan hooyaday intay soo horsaarto ku idhaahdo waan baahanahay way weydiin jirta hooyo bilaa camal baa tahay ka waran xaafadda alxamdulilah laakiin realitygu waxa weeyaan gurigeyga wax lagu cuno ma dhex yaalaan nolosha anigoo ku jira ayaan cid bini aadam u sheegi jirin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku xasuusinayaa intay dhegeysanaysa intay hor fadhidaba runta wuxuu ilaahay kuu qadaray isaga ayaa kugu talagalay inaad qof bini aadana cabasho ugu tagto waa wax aada u sheemlayso ceeba lianna ilaahay isagaa ku geliya duruuftan maxaa lagaa rabaa markaa waa inaad ku simirtid ficliyan wixii aad qaban kartana la kaalay laakiin dhibaatadaada iyo problemkaaga oo dadka maalin walba uga sheekaysa macna ma soo kordhiso waana waxyaabahan u arkay guushu inay dib ugu dhacdo welibana weli hooyada iyo soo hor istaagtay iska daa cid kaloo waad garan kartaa hooyadaa waxba kama qarsan kartid markaan guriga kusoo booqdo ma odhan waan baahanahay aqalkaygana dab laguma karinayo iska daa dab lagu kariye kiradii guriga ma bixin karayo ninkii laydhku markii dhowr jeer laygu soo noqday xataa luqadaan kula hadlahaa ma garanay inaan ku idhaahdo niyo duruuf baa haysan laydhkayga daa so waa sheem waan xishoonaya runtii nin caqli badan baa markaa rawmadu dareemay maalintii dambe marka xoogaa isu ka gaadhay wuxuu igu yidhi nin waan dareemsanahay xaaladda inta wax iska hagaagayaan waxbaa bixin falilaahi xamdu guriga islaan yar baa leh iyadu may aqbalaysaa never maalin walba way soo taagantay anigana duruufta haysa kiraan bixiyo iska daaya waxaa jirta inaan markaan suuqa usoo baxo ee guriga u soo socdo anigoo murugaysan baan usoo socdaa sababtaan u murugoonaya anigu isma murugoonayo qof igu qaaliya oo noloshayda qeyb weyn ku leh ayaa gurigii joogta iyaduna ila qatan waad dareemi karaysaan ilmahaygu ugu horreeyey markaa uu dhashay oo waxoogaa u jira ilmo labaad bay sidaa hooye ilmo yar u yaallo mid labaad sida noloshay ku jirtaana waktigaa tahay qof aada u samir badan bay ahayd sidaan kuu sheegay hanti kale ma haysto markaan guriga imaado waxaan ka sheekeynaya waa jacayl lianna sababtoo xal kale ma hayo xabiibi noloshan waa laga baxayaa waxaan kuu ballan qaadaya ilaahay baa igu ogay waxba ma ogide laakiinse waan hore kugu sheegay uli iimaankayga waxaa ka buuxinaa nolosha ka bixi doono in maalin maalimaha ka mida noloshan aad ka bixi doontid maxabiib waxbaa warwarin way igu tidhaahdaa way iska hagaagaysaa laakiin waan ogahay indhahay koruma eegi karayaan inaanay waxba cunin waaye duruuftii iyo noloshii anigoo sidii ugu jiraa ayaan haddana isku qaadan sir bal stresska iskaga biiside bal waxbarasho dib u gal wax yar lacag yar baan maalin helay waxaan tegey cabdillaahi muuse oo garanaysa iskuulkaas dib ugu noqday xoogaa markaan dhiganaya bil iyo wax noocaas ayay noloshii ii saamixi weyday inaan dhigan karo waayo sababtoo maskaxdu waxay u baahan tahay markaad mas-uuliyad qaadid iyo markaad qof caadiya tahay way kala duwanta heer waxaan gaadhay aan waxba wadi kari weydo waan iska joojiyey waan iska soo noqday duruuftii ilaahay sidii uu kasii adkeeyay haddana islaantii guriga ayaanu isqabsanaynaa markaas inankeedii bay ii soo dirtay
ونيجي نقول يجسر نيجي نقول يجسر ويمي دو والله الله يقول ورد قدر الله باكره وحنا والله قبح يا السوق بنقول إن شاء الله دي لا يراد نعقلوها أدو يرسقي سوق هذا نصبحه وأنا يقول شيء قوم ملي هي اللقطة اللي جوها اللي ضدك اللي جوش هذا ما أقان وانكحشونيا تتناهى بينها بين هذا كم إذا وحيابها بمشي ذي جوها أياننا صاحبنا هاي أيا يقول إن مروي عشتك الناية وأنا صور عني إلهي بقى يقول إنك هسي عشرة ويقول وضد ضميرك ويمسيني أنا عنو سي أنكو هذا العقد عشرة إيسينا ما قرنا يوم هوتيل أجمع كيا لو رسمنا لو نشري من صوفر سنة وقت جاء هوتيل هذا هو خطر سبوها عشرة اللي قاعد نشرينا هافين يوم محنقول هذا حاسين إكس كبار بالمرة نيكي عشرة وضربي أنا ما ضربان دوخيها ما بدل بان بيساق مركا ضربي وان فور راسا سانو فور وحن سويدين يا أحمدو إله بان كو داري مع عشرة هلكن كل عني قف كادو جينا مقرجي كوكا شونسا والله دميرك يويسين واي أول أنا أقول هذا عشرة نيو أن كوب بدش اللعجنا أفكرنا وانكحشونيا واحد سويدي محاسن حسن مع شيء سفاري وكوكات أدو جوان كي يقول بين قاعد وإحنا قدنا نقول هذا نيو وان يرحم وسنة على شو حكير دريميا سفاري كوسي قاعدني عشرة السجل لكن مشي جي أنا أقعد يضروف درتين كورجي بنتجي وأنا تجي هنقول حبيبي وحنا النوسي ده أحي قلت لي حبيبي أدو سكابن وحبان هلا سكابن ما يبان كولي واسكشر قرينا هل كيمان حيصد ديك كاليد هذانا نروش ويس بدريسا نمعة صوص عطا وحن كبقي يعني نمعة هو صوص عطا والله إلهي تسي إني كتير دونتو قصر بيكون فتاة إن شاء الله إلهي نجرزيت راه قف أدو قيمة بدن مركز هيزتي فهمتي نروش وقيمة بدن تاعي سمر يدو القاد فرق بدن بيقول أصرف في الشيء لكن قف كدمر مر ولا اللي بعتها كوسي بدت هو بني آدم سير رقم معها sometimes أيا قفك أي وحي عيرين يعني مالي ما كم إذا ديتنا واحد يقول عادي يدو نروشي كراسة تبان دريمي مركا إلهي هداية واحد تري وحن نرول معها ومن أكفدي موتي جواب وما يسوي أشياء ورنتي نرول معها لكن أنا ما كيني دي وحن كوري إن شاء الله هل كمان يصدق بلابو وحن كوش يجي دونا هذا يقول هذا باش حاجة كتير نمعاد اللي تشيل حاجة كتير سيدي نرشي مرة بده كتيري وحن دوني هالكاين الله شهر قريش كيرو آدو حساب بدن ورنتي مركان نرشي إذا هالكا تاريخ صالح مرت الصبح بام بحي واسكا صار نقدر فارقة قريجي قراء كما عني دور كي قريجي قدر ما جرتو بيها سنسكعبنا بين آدم لو نمجر رير كودنا موجا رير كودنا موجا قان كان أنا قصلك هذا الناي واي حبيني متكي مركز استحدي 10 لان بقول استحدي واي مسا واي كدب واحد عدي صبحي صلاة الصبح برسوك عين مساج كان الرحمة أيام كسوت كذي مساج كان الرحمة مركز كنت كذي إلهي بن آدو بريء إلهي مركا وحن كلا هذايا أف عربي كم بريء أف إنجليزي كم بريء اللغة دينا إلهي كلها هذايا سجود أنا كبريء سرچوكا كبريء إلهي ونولشنا ديجا يجلي هذا أنا يقول ترى قال سيدنا ناي وأنا كوسم ريا إلهي يقصو جبي يعني يقول تبى ديراني أنت هسه إلهي وديستي مديدين لكن نولش مساج كان كسب بحي لوق يرى كويا لا الرحمة كسورتشيت كيدو إما كوحويان جماعة وين بكون تعالى مال يرى لقب حاجته ودا هل كاسا فريستي وعشان تسوي حنوية ملاس واحد سويدين يا حاجات تكتان واحد نفط يقول تري نيو ودا داس كمرة إلهي بل شن بقولش إنه مالها كيش عدادش بل ضيد ضيو بل روديسي حافظ الجي وان صور دقاقو برتنا سولو إلى خيرية وشان تبقولنا موعي waxaan arkay gaari subaxa marka inta badan baabuurta waa xamuulka subaxii soo galaan xamaaliin baabuurka rogisa waxaan si xamaalka ma gasha awoodeeda gadbad ma qaadi karayso inaan galayska daayinaan u dhawaadana iyaga bas ku leeynayba baash
أنا وسيدي إسكجمر جيسم بان قرية تجمر كذا كن يروح يران وجهي بدلون فرحة السيجل يا كوري هل كم تحسد بان بلاوي هاي إسكجمر مفيعانته الحمد لله إلى آخر بينو جيم هذا إسا سيقول تريوا سيدي مالين تاسي وحن قطنا 48 hours والله بمعلمون ساعة دي سجاليا أفرتناد أيو إلى هاي أفكي يحسوق لي believe me مقالة الإنسان شو قايل هبل بنا هاي I don't care about that ساعة دي سجاليا أفرتناد سجاليا أفرتناد أي أفكي يحسوق لنا مركات تاريخ النروش من كبودي إن شاء الله واحد يحسوق وقت كان دو إن يرى الضبح حسوسا كدوين الجليو حالكي أنساو في الدين كدر أي سنة نروشي دورت وانكب بحي نرول كلام قلي شقدي ودبه نقضي ولا يري شقدي كدب فاينالي واحد نقطة ماشي عدو إن ضد كده بنقول قلت جواز لدور ستور كده والله مركي دمبك يبستي إني ماشي يقول على وان فسحنا إيبا نصور دينو إيب كيلو ويا فاينالي ماشي عسي على حال 2002 فبراير أيام أنا قد دين هان كله وريجي قف كي قد ميمر كير واي حكور أنا عيد كيف ستنا واي أنا قد دين أنكو كلا قاضي دين تيبان قرار كلا سميسني نوتايدي فرتين ماشي أنا واحد لقوا قيمة خام رام واحد هذا واحد دحية هلا يوم ما قعيد يوحي هذا سيداكو قاضو كل دبان مدح لقالي واي ماشي السنة بانك مقانا واحد دحية لما قرني لكن waxa ay ugu jira hadaan albaabka galo oo awood u yeesho inaan wax ka dhigayo 100% taas ay ugu jirta sidii baan ku galay sida markaan u soo galay meeshaan arkay sanadkan ka maqnaa waxaan arkay alaabtii waan sheegareeyay oo the expire date waan eegay waa wada jiir baaba cunayba waan eegay waa dhar wada dhintayba waan ururiyay meesha wixii yaalo dhan meel baan dhigay expire ki wax walba ku ururiyay waa iska dhigay gabadhi leed baan igay qofkii wax kale sanaan u yeeray ku hori iyo kaalo yimid waa kaama ku alaabti waa expire wax jiir cunay wax dhintay yaani shelfisku afar koomaha in yaro inta leeg baa ka soo hadhay way naxday maxaan sameynaa way wax ku hanixin lacagtii aan ku ballan qaaday ku heshiinay waa halkeedii ii ducee production kii waan qaaday yoomina hada gurigaygu yaala waa 15 years before 2002 February maanta waxaan ku jirnaa 17 alaabtaasi gurigayga museum bay u taallaa ma tuurin wali waan haystaa fartii baan afartii shay soo haray waxaan idin sheegayaa marka waxaan wax ka bilaabay marka reality-ga ganacsiga waa taxta zero intii soo hadhay baan ku tawakalay business model-kii niyadeyda ku jiray ayaan markaa fulinaya markaa business model-kii markaa bilaabay sidii baan ku bilaabay fashion and style inaan markaa dharka iibiyo bit by bit waxaan ka bilaabay wax ma haysto deyn baan wax ku qaatay meeshii waa ever inaan markaa bedelo meeshii inaan aragti la imaado inaan decoration ma awoodi karo ku sameeyo meesha waxaan garanayaan ku xirxir jiray daah iyo halkaas mariya yar roon balbalaariyay qof waxaan ay ganacsi ku fiican oo dadkii inaan wax ka iibiyo marketingkii bac yar oo ila qabaan marayii ugu horreeyay ku soo iibsaday bac yar ila qabada ayaan marayii ugu horreeyay dukaankeena ku soo iibsaday waan ku waday waxaan ka fikri jirtay loo 10 gabdhood ma gaarsiin doonta 10 kartoon uu ilaahay gaarsiiyay 20 ma gaari doonta ilaahay uu gaarsiiyay gaari ma soo raran doonta ayaa niyadeeda igu jirtay ilaahay uu gaarsiiyay container ma rari doonta ilaahay uu gaarsiiyay ilaa yoomina hada mursal yar baan ka codsanayaa soo gabagabay ilaahay laakiin shay waa soo gabagabeynaya ilaahay ganacsiga sidii ku barakeeyay sidii bay ku socotay maanta halka markaan taagnaa shaqada inta aan ku jiray waxa ugu miisanay fariintaydu tahay habeen kaliya tama damqan jirin maalin kaliya tama damqan jirin waqtigayga inta ugu badan waan shaqayn jiray aniga salisaha aniga kaashiyaraha aniga alaabta keenay kama daali jirin lamana tashan jirin cid waa qodobkay ugu miisan waxa laga yaabaa in badan idin kamid in marka business ka hadlayaan dadka ganacsatada yiraahdaan ka waran waxaas I never ever qof ganacsatada la tashaday laana sababtoo ah dadkeena businesska waan ognahay markaad maanta adeerkaba kugu dhiba ganacsiga weydiisay barku weydiix ku taraa ka waran ganacsiga sidoo yahay waxa ugu horeeya koranaya waa iska caama ma ganacsiga sida waran ma aha wixii waana sababta dhalinyartu uga niyad jabaan fariinteeda horta halka gudbinaya waxa weeyaan ha ka baqan nolosha waliba waxaad ogaataa arsaaqada adiga ku qoran hebel iyo heblaayo ma qorna inaad kaga fiicnaataa laga yaabaa haddii soo maanta daarta daabshil kuma jirno
business ku jira hadaad bilowdayna adigu ka fiicnaataa laga yaabo liana sababta arsaaqadaadu aday kugu xiran tahay kuma xidhna businesska aad u samaysay marka cidna uma joojin jirin fikirkaygu hadduu saliim yahay waan ku socdo sababtoo ah marka la tashi farabadan samaysid dareen waxaad arkaysaa dad badan oo caqabad ku noqonaya waxa sameynaysa war waxa isma suurtageliyaan iska daa tusaale yar baan soo qaadanaya dollar store tafooq xagga sare ku taala markaan furiyay 2007 bay ahayd ninkii guriga lahaa markaan ka kiraysanay guriga kharaabad buu ahaa iga kirey baan ku orin tan odaygu ila yaab wuxuu ku yiraahdaa ma waalantay maxaad ku farsan meesha ma yaad iga kirey baan ku orin aan soo fikiray waan ku noqday wuxuu yiri meesha mas'uul baad ka dhigaysaa maya ma dad bada aad ku sheer garoobeysan maya ana doonaya oo maxaad ka dhigaysaa de ana doonaya iga kirey isagoo la waa Yusuf Jilc baa oday Yusuf Ismaaciil isagoo la yaaban oo qaadi kara la ayuu iga kirey عرض أديك بانكوغاي مركان أنو سميي مالنتي الفري استراتيجية دانو لها اسمها لهن حتوات قاعدة لكن ذاتك ده واحد أنو كنت واحد وين الله يعمله مركا واحد كل شيء يا واحد فكر كجناسية بس كحدا كتيرة هكم بقن حداد كوقن عضو وين الفلسوية ترى ده فرح بدل واحد يسمعني ساعة ده لا تشنها عيد مركب الدوال اللي يقولي وياك ودورنا يا واحد بقفة فوق فورية محاولة والنت هاي وما توجي marka horta waxa yaaba ugu miisan inta badan aan halka ka jeediyay waxa weeyaan aan baan faraya war hadii wax kugu jira oo aad ku qanacday adigu fulintiisa uu ku dadaalo la tashigiisa faraha badan wuxuu sameeyaa damage waxaan ku soo noqonayaa marka haddaan isiraado halkii maalintii aan fadhiyay 500 aan ka raadinayeen deeday 500 shilin ee aan xataa xamaalnimadina aan awoodi kari waayay qofka qiimaha badan guriga igu joogtay إلهي وحسام حي مدكدب إن صوم رماشي إلا يومنا هذا وان مراي أنا هو تجاري شن يلا واتنكم $1 دول استعجل ماشي والله العظيم $25,000 جاري أنا هو تون لا يا هاي أيام دول استعجل ماشي مركزان إلهي لا هذي لأن ما أنت هرنا والله هذي إلهي يكون عديقة كينه أود كمان كينينه ميت كبر إلهي وهاي قديك فرين تدوم ميسن وحويان حداد الله كحناتي taladaadu iyo go'aankaagu waxa xaqiiqa inaad guushaada gaarsiin su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan guusha halkee lagu gaar guush maxay tahay guush way ku agtaala laakiin ma garanaysid guusha hooyada ku gaarsiin mayso aabahaana ku gaarsiin maayo saaxiibkaana kuma gaarsiin karo guushu waa go'aankaaga fikirkaaga bedesho weeyaan runta marka la soo sheego fikirkaaga bedesho ayaa guusha ku gaarsiin karaya haddaad entrepreneur noqotid oo مثلا fikrad ganacsiyo wanaagsan haysid ha ku mashquul inaad faarax iyo geedii la tashatid oo business ku jira tusaale yar nini shaqayn jiray waqtiyada kamida ayaan fikrad ganacsi soo bandhigay ku dhaxan doonaya inaan sameeyo business model noocaas oo ila shaqeeya waan ogahay waan uga khibrad badanahay daanaaba isaga shaqada training garay baray wixii igu jawaabay igu yiri marka waxaan ka eegay balinu ila dareen noqdo saantu igu yiri واسك عادي أبو but I know وأنا if business كان وأنا كفكر إنه successful يعني مدة كدب يسقى سمي business كي يومنا هذا أنا وكشقيا مرة كلها هاي ذاتك يعني فكر كمرة قفك كترة وحاس وإن عقبات كور دكتا إن كنية تبي سوي يعني لكن هذا أضو كوكنا عدد فلوسيد وحلاقي أنا successful كنا قتيد وحنكسر جبنا يا المسج كي قوي من سنة أنا قد بيني وحويا هدي ولا لا رأي الدمر بقى ساقد ولوس ما هي فكرة جناسي أي كوجرتو وعد سمين كرتا عيد كودي كرتا ما جرتو لكن هذا مر والبحر كيسكو حري conditions كإفق الله يرادنا يسكده عيد نلا شيء إذا أنت عن سو وذي يجعل قبتي ما جرتو هل شيء بس لا ملا جوش وتكو قاعد هذا سوق بجيبه وهو يدي مر بكدو عيسن شري يا إلهي يوم برتسد الله الله كحنا وإلا يومنا هذا طلبة كستون قاضبة أن كأكل نتيجة إن الإلهي ما نروح شركته يعني مرة كل إلهي ما حشرت والله يوقفكم يسوي دي سيدا بلا الدعاء وكهذا وحاس دعاء وقال ولي تقول بشيء إلهي ما الله فقدي أضو أفكار وكهذا ولي منه ريالي ما هالدعاء كما هذا أضو أفكار وكهذا إلهي ما كنت إلهي وحن دوني قرشنا عني عن السمايو قرشها سنوي حاسوي جبهانية هاوشها سنوي قاضتي إلهي عاونو ذا دونيا تفعل كنا والله من يا إله يقول قال يعني عدة لا تشتوى الله وما بعنا إن قف كل بني آدم لا تشتت
decisionka markaa wixii aad qaban karta qabo haddii lagu diiday waa haddaanay kuu fiicnayn hadduu kuu fulay waa guul baad gaadhay mahadnaq baa lagaga baahan yahay waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga cid guusha kaa hortaagan ma jirto adiga ayaa iska hortaagan adiga ayaa wax isku xidhay adiga ayaa maalin walba is yidhaahda maxaan ku dhahdaayey wax walba haddii ka dhigay marka insha allah biidmillahi kariim barnaamijka soo gabagabeyn lahay waqtiguna igu dheeraaday intan in ka badan inaynu ka wada sheekaysanaaba ahayd waan ka xumahay intaan dee wixii aan ka hadlayay aan wax taru yeelan intii insha allah biidmillahi kariim ilahay ku anfacana kulleyba waa tusaalayaal wixii kalena su-aalay nagu dambeyn doona aad iyo aad baad mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم باشا مركو روان قرينا دي وسع لسما باهن با اسلام با la weydiyo waxa lagu yiri mise jir baa tahay markaasay ku tiri don't say how old are you how you feel marka mala waxaan ku jawaab lahaa wajigeen ka aragti noqonayso kullaba in badan halka joogtana waan ka weynaay in badan halkan joogtana waan ka yarahay anu imika waxaan ahay 39 waxaanu geli doonaa runtii su'aalihii barnaamijka waan rajaynayaa runtii inuu ahaa barnaamij jawi kale ina geliyay inta aan barnaamijkeedu ku soo wareejin waxa jirtay in yaroo kooban oo Axmed nagu yiri gadaal baan idinkaga soo celinayaa waxaan ka codsanayaa ninkii tahriibay qisadiisii oo kooban degdega inaad waqti kooban noogu soo koobto saaxiibkay uu baxay wuxuu sii socdaba anyway Ethiopia maray وكبحي كينيا وتجي تنزانيا وتجي فاينالي أدوه بحي سويسرلاند بوجوجا يومنا هذا يا وقت جاز شرعي جمويلين ولي وقت هذا كم ذلك يجوا يميت وأنا سارقناي نلاشي كورا بانكيري أدوه جمر جودي إن بدنا ما نحريني وحري أدوه جول باد قاعد أنا ولي نلاشي سيد بان رفقي بوجرا مركا يعني تاسوح يرعى الدين سقفك هادو دلكي سآمنو إسلام مركانا أود دادا إلهي كسيي كاميرا دلسيد إن تقولش جالسيد قولش إنه واحد إنسان قولش يا جوات تعذيق مرور بكواك الله لكن هذا كبقنا إن تقولش ديات دونتيد مركان إنكي إمك على حال حاجة سوتش وقا شرعي جوينا ولي مهرين ستيل ولي شرعي الرئيس ويان أنا الحمد لله رب العالمين هملوين كي جوها كم إذا استجوا حنكوري يوروبينا كوي ما دلنا جيابا إن شاء الله دور دوّدهم يوروب تجي اسمعوا عريسي أنا إلهي ويسام حينا حتى يوروب تقو أنا مركا رنتي دفاعن أنا جاهين لكن سو وحياة مليون كي جاه كم ذا ويا مركا كلها هي يعني وقفكو مروا البنية دكوا هايو الله سيد ولا حجيري سبي وحياة بدر رنتي كحرية يجوش وندي سوريتشينا لكن سؤال بان رواينا ويديا أحمد سؤال شاسواتي حق جوجودن بيسي هدي وقت جيد كودا قاتنا يجر على هذا إلى يوم حريسته مرودي أحمد ويجريوتي مرودي رنتي جديقة دير لسه جورتي بس سؤال شيء ده واحد هاي أحمد وبلغات بدو سمسيرة ونحسيت مرودي واحد كنتي وينكب حضورنا وقت كم ده وقت هذا نلاشنا إنه كتيرو مسوق قاعد نلاشنا أحمد هند ما أنت كتيرتو بسم الله والحمد لله نلاشوا قدر ويان قف كان نلاشوا داير لسوق شيء رنتي markii ilaahay nimcada iyo barwaaqada keenay awalkeedii way soo gaadhay waana ila shaqaysay laakiin suurtagal ma noqon nolosheeda ay ku sii jirto laana sababtoo ah hooygeedii meel kale u ahaa in yar waxaan xasuustaa noloshaan uga sheekeynay qayb kamid ah way soo gashay noloshii waan ka baxnay rafaadkii waan ka baxnay guriga waan ka baxnay waxaan aad u yar xasuustaa waqtiga guriga goosha u taaliyay waxa uu yaalay de nin nolosha ku jira waa dareemi karaysaan macna waxaan ka hadlayaa waxyaabo dumarka aad ka u qiimeeyaan fadhi hurdo cunto waad garanaysaa nin ka fikiraya hal door ma helaysaa miyuu ka fikiraya sariir iyo chief iyo waa maya waxyaabo badan waan u suurtageliyay inta nooleed maalimaha kamida iyadoon ogeyn oon iga filanayn ayaa guri weyn oo deganeed gaari waaraada uu soo galay albaabka fur baa lagu yiri way yaabtay gaari waaraada loo soo galiyay waxa saaran waa wax kasto niyada ku hayn jirtay way la yaabtay qolkay gashay waxa istiri maxaa dhacay deetana alaabtii la soo dejiyay aqalku qaadi karo runtii
وقف runtii dareemi karaya noloshan emotionally dareen baa markaa dee ka yimid mooti marka waxaan ku wari tani waxay kow ka tahay nimcooyinkii nolohawayna jiirayaan ayay kow ka tahay taa way soo gaadhay mursalo nolosheeda farxadana way soo gaadhay runtii dad badan oo waqtiga aanu ku jirnay nolosha adag duruufta aanu ku jirna markaa qori ku mudmudayayna oo ku oran jiray look at this balaag wixii shalay lagaala hadlayay inaan yar waxba haysan baa sana ayaad guursatay dadkiina ilaahay wallahi inaan anigu ogeyn waxaan ku iri kuwa maanta bari ku iman doona kuwiina waxa ilaahay keenay inaan gurigeyga ugu dhex imaado iyadoo wax weysanayaan iyada markaasay igu tiri waa dadkii berigii sidaa sidaa markaasaan ku iri maanta awood ha sheeganin kii shalay toole saa ka dhigay baa imakana san ka dhigay si waxaad u haysaba nolosha way soo gaadhay iyada runtii marka laga hadlo laakiin nolosha inteedii damban may soo gaadhin idinka dhammaantiin halkan fadhina waxaan ka codsanaya iyadii inta islaamka la midanaad insha allah ilaahay dambi dhaaf weydiisaan ilaahay dambi dhaafo iyo dhammaan muslimiinta iyo barnaamijka waxaynu wareegaynaa qaybtii su'aalaha inamada gacanta fududaamaya ha xamse halkaa kale wareeg بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdi Saaqan Ali Ahmed aad baan kaaga mahadceliyay barnaamijka qofka su'aasheedu waxa weeyaan markii aad barnaamijka doorada furaysay ma jiraan cid kaa caawisay sabab inteeda aad fashligiisa oo toona mahadsan way maasan tahay su'aasha xigta magacaygu waa Cabdi Saaqan Ahmed su'aal ku haya su'aasheedu waxa weeyaan markii aad soo waday waqti caqabado badan ay soo maray yani caqabadaha waan arkayna soo maray لكن هروب الفلوس عندي شغالة أول شغالين زي ما هو شغال تجاري هل ما على الأقل ما ندري شكلين أو قف معه يعني مركز سوري حين سؤال شو اللي يعني قف هدور ربيعه كناس بناعه وقت اسمه شو حتى ربيعنا كناس بناعه فرست يصير كعمال شيء جوال كل العادة نسمعه هي الاستحالة اقتراب بسم الله مدرسة مثلا مصنعية سؤال شو معرفة maadaama tahay qof in badan ku jiray jiddiga ganacsiga loo sheegi kartaa in la wadaagi kartaa saddex qodob oo odhan karto wasiirka ganacsiga guusha waayahay mahadsan tahay السلام عليكم ومعسنتي مرشدة أحمد هذا يكون معسين هاي بعدين هني بنحسي كوش الإختري أو محل هذه بدن بنحسي كوش الإختري رفاع صامرة سؤال شو مدير أو حتى أحمد ودرية تقال بدن ويبحثون فردياء يشتغل من جناحسرا kuwaasoo markiisa dhammaan ganacsada caqabadeegood maga caqabadaasoo ah kulli adigu maskaxaanka keento dhalinyarta iyagu ma tashadaa qof bay talada la raadsadaan qofkoo talada raasada wuxuu noqon qof niyad jabiya oo dhabarka ka toogta ama ha ahaado mid ganacsada ama ha ahaado mid ganacsigu kasoo burburay marka su-aashaydu waxay noqonaysaa maadaama dhalinyartii marka ay qalab badistaan shaqa abuura habkay ugu dhiiran lahaayeen shaqa abuurkaas macasidooda بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ولا الكينا ويديي إذا ما كعاوسي فرتان كي دولار ستار سدان هذا الكيك مركو راكو شيغاي ولي ما يدعين قف بني آدم أو يقول هذا تاغيران كاسي وحاس أما قرب هيقو قبطو أما هاي عاويو نولوش وحا يسورنادون هدف كيغا هدفكاga markuu ku sawiranayo ilaahay ina tala saaratid waxaan aaminsanay 100% aad ku gaarsi haddaan su'aasha kooban ka jawaabo cid gacan gaar ah iga siisay ma jirto dayn baan meeshii kula wareegay budget ma hayo suuqii waa ku cusubahay waxa laga sugayaa kiro iyo lady biyo hadafkan igu jira ah inaan ka mari dhalinayo shaqadayda marka cabsi la'aanta iyo calool adayga iyo in hadafkaaga ku muuqda waxay guul ka noqonaysaa inaad targetkaaga gaadho haddaad laakiin mar walba caqabad ay soo dhigto ka hor imanaysaa oo mar walba waxaana ku haystaa istiraado ma dhaafi karaysid su'aasha labaad ay walaasheen weydiisay okay su'aasha labaad walaashaysi waxa weeyaan waa run caqabad badan baa kugu imanaya marna ma niyad jabtay bay weydiisay niyad jabka waxyaabo badan baa keena laakiin marka target leedahay way adag tahay inaad adigu naftaada haddaad ku tiraa su-aasha haddaan si toos uga jawaabo weli ismaan oo dhan waa niyad jabtay weli anigoo caqabado badan gelaya arkaya sometimes baan riski geli jiray
sometimes baa laga yaabaa waxyaabaha aan galaya inay khatar yeelanayaan laakiin calool adeeg baan ku dhaafiyay anigoo aaminsanaa inaan ka bixi doono dhibaato kasta ku timaadana 10 bay kugu tahay marka dif wax la yiraahdo inaan isdhiibo may dhicin marnaba ganacsi marka la abuurayo talaabada koowaad la qaadi karaa waa maxay su'aashaas aad bay muhiim u tahay waana su'aasha ugu badan ee dhalinyarta ka dhex guuxaysa inanba wuxuu ka fikiray inuu ganacsi sameeyo waqtigan anu ganacsiga bilaabayay ganacsiga anu waa aragtideedan ka hadlaya ma oran karo waa tii saxda ahayd ganacsigu wuxuu ku xidhan yahay bilowgiisu environment-ka aad ku jirto ku xidhan yahay tusaale ahaan haddaan Hargeysa ganacsi ka bilaabayo si gaar ah u fikiraya haddaan United States ka bilaabayo si gaar ah u fikiraya haddaan Ethiopia ganacsi ka bilaabayo si gaar ah ayaan u fikiraya marka waxaan ku soo noqonayaa ganacsiga halkan markaad doonaysid inaad ganacsi bilowdid ee aan rabo inaan ganacsi maanta ka fikiro maalinta aanu halkaan taagnaa aan waqtigan bilaabayay ka aan ka shaqeynayaan ka fikiri jiray laakiin maanta oon intaas ku soo dhex jiray 150 fikradood oo ganacsi baan garanayaa oo opportunity-da maanta Hargeysa ka taagan waliba especially less budget laga yaabaa inay adiga caqabadaada ugu weyn lahayd lacagta tahay waxaan aaminsanahay ganacsi lacag laguma bilaabi karo fikirkaana aaminsan okay ganacsigu muxuu ka dhashadaa abuuridda ganacsi waxaad abuuri kartaa markaad fikir kii aad la timaado suurtagal maaha xataa dad lacag haysata inaad tirahdo business baan bilaabaya waxa ka horeeya maxaad ka ganacsanaysaa maxaad adigu jeceshahay waxay ku xidhan tahay ganacsigaad ka shaqeynayso ma jeceshahay fiilkan haddii aad jeceshahay inaad dukaan furatid dhar iyo waxaas oo fiilkaaga yahay oo aad xiisaysid ayaa laga yaabaa laakiin wax barashadaadu inay nursing tahay baa laga yaabaa so horta marka hore wuxuu ku xidhan yahay jacaylka adigu waxaan u qabtid taasi waxay abuuri doontaa kamira dhalinta shaygan ayaa ka badnaan doona inaad ganacsi kale oo jecelayn ka shaqeysid haddaad jeceshay inaad sharaabka meel ku samaysid meel sharaab oo niyadaada ku jirto habeen iyo maalin kaasaad guul ka gaaraysaa ganacsiga markaa waxaan oran karayaa entrepreneur-ka marka laga hadlayo waa inuu adiga horta marka hore de wax target yeelataa qaab loo raacaa jira oo runtii aan oran karo de dariiqaas loo raacaa inkastoo waqtigu saamaxayna aan ku sharaxo sirta guusha ganacsigu maxay tahay ayaa inantiina weydiisay sirta guusha ganacsigu kow aad kelmadda waxa sunnada kow waa samir sirta guusha ganacsigu waa samir laba waa dadaal aad geliso suurtagal ma aha habeenna ku seexan inaad lacag samaysid inaad shift shaqaysid iyo inaad iska fadhiisatid ganacsigu wuxuu kaaga baahan yahay habeen iyo maalinba shaqo fikir maxaan ku dhahaa ilaalin maxaan ku dhahdaa adkaysi haddaad adkaysi u yeelatid samir u yeelatid waad ka mina dhalinaysaa rajadaada mana suurta gasho in intaad maanta ganacsi bilowdo inaad berito la guul heshid maaha suurtagal taasi waana inta ugu badan inta nagu jirta oo qof kastaba ka fikiraya lacag yar buu soo qaaday ma sooran waxaan ku bilaw dukaankii la soo geliya laga yaabaa meheradii la soo geliyo ayaa laga yaabaa sidee suurtagal ku tahay waay aad u doonaysaa in iyadoo 150 meheradooda hore jireen mostly ganacsigeena copyright buu badan yahay inaad maanta intaad furto lagu soo wada galo maaha suurtagal meelaha qaar situation-ka ku xidhantay ganacsiga aad ka sameynaysid tusaale ahaan haddaan doonayo inaan wax ka ganacsado meesha waxaan baahi ma looga qabaa waa su'aal la isweydiinayo haddaan baahi looga qabin ma hore u jirtay haddii hore u jirtay maxaad kaga duwanaanaysaa marka waxyaabahaas waxyaabaha analysis-ka u baahan inta badan in qofku markuu bilaabayo ganacsiga uu isweydiiyo weeyaan samir baa ka koobaa oo de waxay u baahantay shaqadii samir dadaal baa ka koobaa ka ugu weyn ee ganacsigaagu dhabarka kaga jabayo ama guusha ku gaarayaana dadka intooda badanna aanay dareensanayn waa time-ka as much as aad waqti ganacsigaaga geliso as much as aad successful noqotid waana ta u badan ee dadku isiraadaan lacag intuu meel geliyo uu hebel baan u dhiibay ama muxuu ahaayay waqti yar yimaado meesha maaha suurtagal lacagtaadu intaad dul joogtay kula joogtaa lacagtaadu markaad albaabka ka baxdo way kula baxaysaa بسم الله الرحمن الرحيم أنا قبل ود مليه شال معنا سيجار معبو واحد راجس الشقة مليه قضب كانوا نقف في سنة الشقة إذا هرت أنا جيب بالودا نمبر 2 وحبان آخرية أنت بدن نمبر 3
guriga iyo shaqada meel u dhaxaysa ma tago walibana khaasatan waqtiyada shaqada imaka intan aan iska yara maartaan sini malaha waxbaad yar samaysabaan laga yaabo in meel yar fadhiistee waqtigaan shaqayn jiray never ever inaan maqaaxi soo fadhiisto never ever ma fadhiisan jirin maqaaxi intayna gabagabin ka hor waxaa jirta su-aal runtii muhiim oo gadaal kasoo baxday axmed hadduu socdaa ha inoo soo koobo waynu aragnay ganacsiyo badan oo kala duwan buu sameeyey laakiin was going to be next horta alxamdulilah maanta taagana waa alxamdulilah waan arkaa stiilna weli halka hadafka yahay maanta tegin dhalinyarada inaanay ka badan baan rajeynaya ganacsiga wax abuuradana inaanay ka badan hadda ninka waxaan taaganay alxamdulilah maalintaa taariikhda marka dib u noqono waa nin gidaarka fadhina ka fikirnay 5 boqol suuqa ka helaysa maanta waxaa ii shaqeeya 40 qof warragayda gurba isku jira hadafkaygu waxa weeyaan intan inay ka badato insha allah laakiin waxaan ka fikirayaa hadduu ilaahay la qabto ilaahay baa mar walbana wax la weydiistaa waxaa sometimes ugu soo dhacdaa adiga wax doonaya laga yaabaa inaad tirahdo waxaan ma heli karaysid bilaa calaykum taa niyadda ha gelin waad heli karaysaa ilaahay baad wax weydiisanaysaa qof bini aadam wax la weydiistaa waa iska gubay leanna ilaahay markaad wuxu bardhigtid ku hadle ku daa hadafkii waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ganacsiga ku faafo gobolka ilaa heer caalami insha allah